garaad laascaanood fadhiya maxaan ku yiraahdaayay askari korneel darwiish waxa soo dhaheen dadkii furinta la joogay ee uu kaga soo tagay ee ilaa hadda ku jira dadka waxa soo dhaheen laakiin nin qurba jooga oo isagu sacrifice-ka uu sameeyay iyo inta uu horay aan horin oo wadankii maalin tagin oo qoriga maalin qaadin oo xabadda maalin soo ridin oo xataa maxaan ku yiraahdaayay magaaladiiba aan soo arkin oo sidayada looga waramayo ama annaga nagu xiran oo dhageysanaya ama idaacadda u jooga ama TV-ga maxaan ku yiraahdaayay maxaa la yiri ninka inuu haay xaq ma aha dadka bini'aadamka ahi waa inay maxaan ku yiraahdaayay xaq inay eegaan weeye waa inay xaq eegaan mid kale anigu halka inta ku jiray dadka hal mid ka waanin jiray haddana waa ku celinayaa dhulbahante ama reer SSC ama khaatumo halgan bay ku jiraan halganka ay ku jiraan calanka bay u dhimanayaan midnimada ummadda Soomaaliyeed bay u taagan yihiin hal cadow bay leeyihiin cadowga ay leeyihiin oo maanta hor taagan waa musabixi dadka in la majara habaabiyo ma fiicna musabixi baa cadow u ah dawladda Soomaaliyeed cadow uma aha beel caalam cadow uma aha jamciyad quruma ka dhaxaysa cadow uma aha musabixi baa u cadow ah muuse iyo dadkaas waa inay kala haraan way waa in muuse wadanka laga saaro in laga adkaado way in dadkii marka la majara habaabiyo oo maalinba mawjad loo shido taasi waxay keenaysaa halgankii inay ummadda maxaan ku dhahaa laga mashquuliyo bay keenaysaa marka anigu waxaan qabaa oo mar walba sheegi jiray war ilma adeerayaalow yool baa leedihiin yoolkiina ayaan laydinka khaldin aniga shiina ah haddaan maanta cid ishayno ama cadow aan leeyahay micnaheeda maaha inaan dhaho waa idin taageersanahay waxa weeye cidda aan maartay aan ishayno maxaan ku yiraahdaayay idinkuna isqabta taas maaha idinku dawladda Soomaaliyeed baa u baahan tihiin waxa uga baahan tihiin inay taageerto waxa uga baahan tihiin taageero nooc walba inay siiso ay ugu horeyso hub ay ugu horeyso dhaqaale ay ugu horeyso beesha caalamka in ka gado ay ka mid tahay inay maamulkiina aqoonsato dawladda Soomaaliyeed waxa u baahan tihiin dawladihii dariska ahaa ee Itoobiya leh ee cid kasta leh in qadiyadiina laga gado musabixi markuu warqad soo saaro ama uu hadlayo waa aragteen adduunka diblomaasiyad baa la isticmaalaa muxuu leeyahay argixisaan meesha kula dagaalamaya dalalka dariska amaankooda difaacaya waxa soo dhaha waa in dadku hadlaan warqado loo diro waa beentii la dhaho ummad xaq u diriraanahay dhulkoodii difaacanaysa argagixisa manihin sida in dalalka dariska ahaa looga gadaa loo baahay beesha caalamka maxaa laga rabaa beesha caalamka waxa laga rabaa in la tuso ninkan inuu dadkii duqeynayo inuu maxaan ku yiraahdaay arxalaawo yahay inay dadka rabitaankiisii uu rabo inuu jajuubo taariikhda qaramada midoobay waa qodob muhiim u ka yahay self determination oo ah dadku inay aayahooda ka tashadaan ummad meel degan oo rabitaankooda laga hor iman karo ma jirto marka caalamka in la dhaho annagii dadka deegaanka ah oo gobolka lahayn baa waxaan rabnaa inaan Soomaali ka simid ahaano waxaan doonaynaa maamul noo gaara inaan helno muuse wuxuu rabaa inuu qori caaradii nagu maamulo nagu muquuniyo caalamkii waa ku garaabaya marka halgankaasi taageero cid badan buu uga baahan hal mid su'aal ka wadinaya shino waxaan ka wadinaya su'aal in ra'iisul wasaarihii iyo madaxweynihii dalka shanta afarta sano soo socota dalka dastuurka ugu fadhiyay ee aqoonsiga laga doonayay in la caayo oo qabiil waliba loo ataago sidee halganka ku tahay halganka waxa ku tahay dhabar jab ku tahay horta dhulbahante shiina culay iyo wasalaamaya darwiish sakariya boqor soo dhow waa ku salaamay tolka dhulbahante waxa waaye hal mid aan rabaa inaan caawo u sheego dagaalka ah ku jirtaan xabad oo kaliya maaha walaalayaalow taa ogaada xabad oo kaliya maaha dagaalka ah ku jirtaan diblomaasiyad buu leeyahay dagaal dhaqaale leeyahay mid siyaasadeed buu leeyahay mid mustaqbal buu leeyahay waxaa jira wadamo badan oo adduunka ku yaala oo ku guuleysta xabadda ku guuleysta military ahaan u guuleysta laakiin siyaasad ahaan loo jabiyo diblomatic ahaan loo jabiyo propaganda ahaan loo jabiyo oo dagaalkiisa taa ugu jaba hadda wadankii midowga Sovieti adduunka isaga ugu awood badnaa xagga militariga dhaqaale ahaan baa loo jabiyay marka
dad baa waxay aaminsan yihiin hub baan haysanaa waa dagaalameynaa muuse xabad baan la dhaceynaa okay muuse xabad baa la dhacday waa ka adkaatay what's next maxaa kugu xidha waxaad doonaysaa inaad maamul hesho maamul goboleedkaad doonayso inaad heshid wuxuu ku xiran yahay dawladda federaalku waa inay ku aqoonsato shalay maamul baa khaatimo abaa dhistay waxaa ku dhistay taleex baa ku dhistay wuxuu u shaqayn waayey aqoonsi baa dawladda federaalka ka weydeen maanta maamulka aan dhisnay waxaa loo baahan yahay inuu dawladda federaalka aqoonsi ka helo dawladda federaalku madaxweyne leedahay waa xasan sheekh maxamed xukuumad bay leedahay ra'iisul wasaare leeyahay waa xamse marka dawladdii aad ka rabtay inay ku aqoonsato oo ku taarto ma aha in iyadii lagugu diro ama aad la dagaalantid ma aha dantaada maqaar ay baa loogu fariistaa haddaadan xasan jeclayn haddaadan taageersanayn waa inaad ogaatid xamse iyo xasan inay mandate leeyihiin oo waddanka ay maamulaan marka siyaasaddu waxaa la yidhi waxay leedahay dan joogta ay saaxiibtinimo joogta ama leh saaxiibtinimada halka iska dhig dantaada ka gaaro ka fusho yaan lagugu dirin madaxweynaha qaranka bishii February waxaan ugu tegay Roma marar horena waa sheegay haddana waa ku celinayaa saacad baan la fadhiyay wallaahi wabillahi watallahi waa idin dhaartay waxaa weeye SSC madaxaasi u saarnayd diyaar baan dadka waxaan u ahay wax walba oo rabitaankooda ila yimaadaan inaa u fuliyo buu yiri garaadadu markay u tageenna intaas ku soo yiri ra'iisul wasaaraha xaramkan isku aragnay ma rabo inaan kood gareeyo oo waxyaabo badan oo uu ii sheegay aan halka ka sheego laakiin waxyaabii uu ii sheegay waxaa ka mid ahayd in taageerada uu SSC siiyo inay ku qabsadeen xildhibaanada ka soo jeeda beesha maxaan ku rahdaa isaaq ee Soomaaliya jooga oo wasiir leh oo ra'iisul wasaare ku xigeen leh oo lagu yiri ra'iisul wasaare annaga laba nooc caday ina ra'iisul wasaare Soomaaliyeed tahay ina maaragtay aad tahay maxaa la dhahaa ra'iisul wasaare daaro tahay oo uu maxaa ku rahdaayay ku khasbanaaday inuu isdifaaco waxaan rabaa marka dadku inay mid kale fahmaan madaxweynuhu nagama hadlin ra'iisul wasaare nagama hadlin war dawladdu waa idinka hadashay war dawladdu soo tii qaramada midoobay golaha ammaanka ee 15 dal ah qadiyadiina geysay oo Abu Karbaal oo ka hadlay Soomaha oo Shiinaha iyo Mareykanka iyo cid walba ay ka cambaaraysay Musabixi oo la yiri kala bax ciidamada macaaqil daarooda geeyay magaraad dhulbaanta ay geeyay ما مدحونا بتلان باقي مايا دولة الفدرال الصومالية قيسي سفير وحو هالكا كشيغو ووحمد حتوية الصومالية وسارد أريمها دبدا فورجين بوليسي وح قابل لحريرة ويا وحو وسفيركو حتى اسكلا إيمان كرو ميش كاكاشي كين كرو اسكاش ريحي كرماها أنيقا مركا وحان ربا أو إذن لجع لهاي وحاوي حبدنا دينع كوضا الدبلوماسية دينع كوضا دقالكي دقالها دينع كوضا وحي أو دون اسكوتا dadkiina isku wata cid walba danba ka leedihiin maanta qof baa wuxuu oranayaa maamulka waa lagu khasbay maamulka ummadda Soomaaliyeed baa waxa laga rabaa xataa in laga dhaadhiciyo waa in la tuso dawladda federaalka iyo ummadda kale Soomaaliyeed la dhaho maamul goboleed halka ka soo baxa dad badan baa wixii dadka ka dhaadhiciyaan daarood baa saddex maamul helaya khatar buu nugu yahay faa'iidada uu keenaya ka badan waa in ninka hawiye tiraxo faa'iidadu keenaya maxay tahay Soomaaliland baa meesha ku jabaysa oo maxaa ku yiraahdaa hadii maamul goboleed aan siiso i'tiraafkii iyo gooni istaag iyo wixii doonayaan meesha ka baxaya waa inaad tiraahdo okay compromise baan ogolahay aniga state-kayga marka ay saxiixdo adna banaadir baan kula dhisaya compromise baan hayaa waa inaad tiraahdo marka inuu qofku meel fog wax ka eegaa loo baahan yahay hadda maanta hadeenu Musabixi meesha ka saarno oo ka adkaano oo oogeyno laakiin aynu ku fashilno inaynu maamul goboleedkeenii aqoonsi u helo oo ka gadno dawladda federaalka oo arintii iska noqoto Puntland iska noqoto Puntland iyo Soomaaliya waligooda isbacsan jireen jugjugay meesha